رحمة سيقت إلينا من سماوات علا. habeenka ugu horeeya Ramadaan dhasho bishu dhalato isbedel baa ka dhacay adduunka isbedel raadkiisu inoo muuqdo ayaa dhacaya maxay isbedelka dhacaya sida nabigu ku sheegay xadiidka saxiixayn ku yimid iyo qeyrkoodba habeenka ugu horeeya markuu Ramadaan dhasho waxa la furayaa iridaha jannada laana khayrka iyo wanaaga jannada lagu gala badanay iridii naartana waa la xidhaya laana wixii dadka naar geyn lahaa baa yaraanaya iridii naartana waa la xidhaya qodobka saddexaad waxa weeyaan shayaadiintii dadka duufsan jirtay oo khayrka ka hortaagnayd xumaantana ku xambaaraysayna koodii sii dardarnaa waa la xidhxidhi waa la katiinadayna inta Ramadaan ka dhamaanayo way xidhxidnaanayaan wixii dadka ay ku sameyn jireen bilaha kale kuma sameyn karaan Ramadaan xadiidka qaar waxay leeyihiin shayaadiintii baa la silsiladeen waa la katiinadeen waa la xidhxidhi xadiidka la sii sharxay wuxuu leeyahay maradatu shayaadiinta kuwoodii madaxa adkaaye sharka yani waxa sharka badnaa madaxda ah kuwaas la xidhxidhay kuwa yar yar oo ruux haduu dadaalo uu ka adkaan karo yaa jooga iyo naftaadii sharlayda ahayd labadaas marka kugu salidan saas daradeed isbedelka dhacaya iyo shayaadiintii in shaqo laga qabto la xidhxidhay inaga raadkooda inoo muuqda midii ka dhashay inoo muuqdo raadka inoo muuqda wuxuu yahay Ramadaan markuu saa u dhasho goobaha khayrku waa buuxsamaya masaajidii meelay istaaga male ruuxii salaada faradka lagu kari laayay tacbaanka ah waxaad arkaysaa 11 ragcadood buu taagnaanaya juz baa lagu dul akhrinaya meelaha qaarkood 13 ragcadood buu taagnaanaya juz baa lagu dul dhamaynaya laba juz 3 juz baa marka qorto lagu dul dhamaynaya uu taagnaanaya 10 daqiiqo salaada waajibkaana muusan taagnaan jir kolba lug buu qaadi jiray kolba lug buu ku istaag jiray rafaadka haysta maxay isbedelay waxba isbedelay dad badan oo masaajida aqoon jirin baa soo galay masaajida sidaas daraadeed xagee isbedelku ka yimid isbedelku wuxuu ka yimid shayaadiintii la qabtay ayaa dad badani ka soo fakadeen shayaadiinta dad baa u xidhxidhan maxaabiista ugu jira askarigii ku hortaagnaa ee xabsiga hortaagnaa hadii laga qabto isaga xabsi la dhigo soo carari maysid marka dadka waa maxaabiis soo fakatay waa maxaabiis iridaha soo jabiyay waa afarka aan arkaynaa waa ka nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam oo shayaadiinta la xidhxidhay ayay ka iimaanaysaa inay dadku ay khayrka soo qaabilaan waxay khaas ku tahay iyadana bisha Ramadaan inay khaas ku tahay waxaad gorani markii bishu saa u baxo la ciido habeenka ciidda aba dadkii masaajida buuxinayay arkimays war dadkii xagee kala aaday maxaa ka haystay ninkii oo la soo daayay baa qaar badan yaa ganafka ku dhuftay marka waa khasaa'ista bishay kamida waxa kamida khasaa'isteeda bishu waa bil ilaahi tabaaraka wa taala adoomadiisa in badan oo kamida naarta uu ka saamaxo naarta ka cafiyo naarta ka xoreeyo nabigeena waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri habeen kasta oo Ramadaan habeenadiisa kamida ilaahay wuxuu leeyahay adoomo uu naarta ka xoreeyo riwaayada qaarkood waxay leeyihiin marka la afurayo inda fitrihi marka la afurayo inda kulli fitrin markasto la afurayo dad badan baa naarta laga xoreynaya iyadana waa Ramadaan ayaa lagu sheegay maziyada iyo khasisadaas waxa kamida bisha Ramadaan waa shahru sabri waa bil uu soo baxo sabirka dadka sabirkooda iyo adkaysiga ruuxa baa soo baxa طاعه إلهي إنه صبره وتنهد تلمامينيه waxa laga yaabaa marka Ramadaan uu sanahayn inaad soonto kuma fududa laana wax way quraacda baratay iyo qadadii iyo xoogaaga aad la qabsatay baadan joojin karin laakiin bisha Ramadaan markay soo gasho soonku waa fududii daacadii waad ku sabri salaadii habeenkii waad ku sabri quraan akhriskii waad ku sabri
daacadii sabirka lagu sabray adkaysiga loo leeyahay baa muuqanaya macaasidii iyo dunuubtii oo laga sabray baa soo baxaysa oo dad badan oo qasan jiray bilaha kale waa ka sabrayaan bisha ramadaan ninkii balwad lahaa xataa qaar badan oo wax mubaaxaad fara badan baa laga fogaanaya oo looga fogaanaya muxuu ahay khayrkan in laga faa'iideysto waa bil sabir marka sabirkaas marka ilaahay wuxuu ku siinayaa dadka wax weyn inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisaab sabirkaas ilaahay wuxuu ku bixinayaa ajir aan xisaab lahayn waxa kamida bila bisha kamida ee khasaa'isteeda kamida wa shahru taskiyati an-nufus wat-taghallub ala an-nafs al-ammara bis-suu wa bishan wa bilaha nafta la daahiriyo oo ruuxu uu ka adkaan karo naftiisii sharleyda ahayd waaba la soo dhaweeyba naftii ka adkayde ku jiidatay baa lagaaga kaalmeeyay waa daciif marka bisha ramadaan saaxiibkii garabka uu ahaayay shaytaan ahaana waa laga qabtay horta waa iyada kaligeed ayadiina waa la daciifiyay ayadoo daciifa waxay kaaga baahan tahay marka waxoogaa inaad ku yara dhiirato awoodna yara isticmaasho waad ka adkaan kartaa marka naftaada marka inaad daahiriso camalkan faraha badan soonkan taacadan faraha badan shaytaanka laga qabtay waxay keeni kartaa in aad samayso isbedel tagyiir naxwa al-afdal in aad isbedesho xagga wanaagsan aad isu bedesho khayr badanoodan samayn karaynin ramadaanku waa ku baraya hore aad u samayn jireen xumaan fara badanood ku jirtay ramadaanku waa kaa goynaya naftaadii oo kaa adkayd wuu ku jabinaya sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay wax yar inaad riixdo ramadaanku intuu ku jiro haddaad dadaal fiican samayso naftaada waxaad gaadhsiin kartaa meelayna dib damba kaaga soo noqon karinba mar damba ayna kula murmi karinba dagaalkeeda aad intaad ku dhufato muxuu ahaayay laad fiican ku dhufato meel fog baad gaadhsiin kartaa ayna ka soo noqon kareen laakiin haddaad meelo dhadhow iyadoo joogta ramadaanku ku dhaafo intay kugu soo rogaan celisay ku lagti jaanis weyn way marka in nafta la daahiriyo quluubta la daahiriyo nafta la tarbiyeeyo la taskiyeeyo bisha ramadaan jaanis aad iyo aad u weyn weeye waxa kamida bishani ay leedahay oo kamida mazaayaadkeeda bishu waa bil caafimaad dhanka adduunyada xataa marka la fiiriyo waa bil caafimaad sababtu wax weeye cuntadan faraha badan idkhaalu tacaam ala tacaam cuntadan una iska dulgeynayno cudur oo dhan baa ka dhashay cayil baa ka dhashay cayilkiina hadda cudur buu noqday cudurna wuxuu ka yimaadaa inta badan say culimada dibbigu tilmaamayaan cuntadan uun meesha lagu gurahayo khaasatan magaalaynu joognaayo cuntadiina ma gubayno ma dhaqdhaqaaqayno ma soconayno ma dhididayno xafiis baan fadhinaa dukaan baan fadhinaa dhaqdhaqaaq male calooshiina waa buuxinay maxaa imaanaya marka waxaa imaanaya calooshii inay jirato hadday jiratana jirkii waa jiraday cudurraa dhashay ilaahu yaa magaalo naga saaran taagana kiniini baa jeebabka inooga wada buuxo aan ku wada soconnaa ooma mid dhiikar qaba mid sonkor qaba mid cholesterol qaba jeebkaasaa inoo wada buuxa waxa maxaa keenaya oo in badan sabab u ah cuntadan taata aan calooshiiba la banaynaynin ilaa caloosha inay nafistay u baahan tahay waa ka nabigeenu yidhi sal alay slam xataa markaad cunaysaan wal caloosha saddex u qaybiya thuluth liطacaamihi wa thuluth lisharaabi wa thuluth linafasihi xataa markaad cunayso saddex u qaybi qayb cunto geli qaybna cabitaan geli qaybna bannee aad ka neefsatid saddexdiiba haddaad bariis ka buuxiso ka war cabitaankii waa dulsaar neefsina maba jiraba barina waxa weeye gaas baa haye iyo balaaya ugu dhacday waxbaad bilaabayna bisha ramadaan marka waa jaanis weyn saas daraadeed baa yani xataa iska dhaaf muslimiinta gaalada dhakhaatiirtooda iyo kuwooda cilmiga dibbiga ku takhasusay waxay leeyihiin soonka iyo caloosha in la banneeyo waa nooc oo sixad iyo caafimaad ka mid caafimaad weyn baa ku jira
إلا جوانب فربنا وحي لهذا عباداتك إليه جوانب فائدنا وليه صلاة هبينك صلاة صلاة هبينك صلاة الليل كلا تاجنانا الركوع ده اللي قد ضاهي سجود ده اللي قد ضاهي وإكسايس واحد لين عمرك لقى في رواية عبادة لكن دنك كلا شركي باتشمع سنة يا شركي باتشمع سنة مروة تاجن هاي أولوجي باتشمع سنة مروة فورتا مروة سجودة وحاصل نسكليشن كي ليك دقائق سيء شركي جميع سجي سوا ينع فائدة الدنيا بكون توعى في ماذا صون كي سلوك كله ساس درادة بيشاني خصائص تدا لما كوبي كرو لكن أنكو سو جبيو فوائد فرها بدني فائدة ينكاسي يا إسكالي مدة كورن با إسكالي ما أنت سو خيري كبدني وحي للشجع وحا إسكال الروح إلا بشرت اللي جاهه أبغى قضب حقيقي قضب كوكبادي وحويان إن الروح الدلالو هدو الدلالي وايو وبشو طافتو إسقون كفائدة سنة رمضان روح فائدة وما إيه خسارة كتاه وبال هي عقوبة كتاه وكجبريل النبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام النبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم صدح الروح وهباري ملك الجبريل نبي محمد آمين بولي صلى الله عليه وسلم صدح الروح اللي هباري كوحكا روح رمضان أصوق لي ورمضان رمادي يسقون لودن بدافع هباره الله كريد وكاس الله فوقيه يا جبريل بهباري نبي محمد محيي آمين الله أقبل واي مركا كان أنكفى إذا سنين ددالين waxaa fadli iyo khayr la sheegayo oo dhan asaga xuquuq ay ku noqotay laana wixii jaaniska ilaahay siiyay uu ka faa'iideysan waay saas daraadeed marka dadaasho waa koow hada dadaali weydo ramadaan way waad sii fogaan mooyaane cadaab baad sii mudan mooyaane wanaag iyo khayr ka dheefimaysa talabaadi waxa weeyaan dadaalkaagu inuu waafaqsan yahay hadigii iyo sunnadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam sonkaaga salaadaada sadaqadaada umradaada khayraadkaad sameynayso waa inay waafaqsan tahay shariicadii nabi maxamed ka tagay sallallahu alayhi wasallam see rasuulku u sameeyay sallallahu alayhi wasallam taana haday dhici weydo inta dadaasho dadaalkaagu uu baal maro sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo sidii shariicadu wax u jidaysay markaana wax weeyaan waxba maada ka faa'iidin ramadaan soonkaagi iyo salaadii badneed iyo cibaadaadkii iyo taa'aadkii iyo sadaqaadkii hal bacad lagu leeyahay وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ضد بدنا واحد شرا تاجن هبينك صلاة وتاج سوتشيد كودا صلاة وتاجيه إنه وحكي لك هلي ما يا هردهم بيكتاجين لكن وحهم الله قار واحد شرا مالك يوردن صوما لكن صوم كودا كليه وحكي هلين قاتشي أون بس واحد شرا ماله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لو قضى مركا حقيقي إن الدداشو ددال كاغانا إن أدوافجيسو هديجي يا سنة يا طريق النبي جينا صلوات ربي والسلام عليه عمل ير وسنة النبي وافق سنبا كفي عن عمل فربضان وسنة النبي قرم مرسل صلوات ربي والسلام عليه لبدا قضى مركا حقيقيسو وحا خير يا فضيلة يا وناق لقاها الله يو روح واحد كم إذا تذكر مطيبات مركا كم من نقونيسا بإذن الله تبارك وتعالى هديك له ويكون قد بقدومي أنت هسي أيام كسو قبقبين إن شاء الله تعالى فضائشي بشهر رمضان صون كفضائشي سامد والفضائل قوني وليه بشهر فضائشي أيضا كهالله لكن صون كفضائشي سادي لقاها الله وابدك له صلاة هبين كيلو تكذا فضائشي سادي لقاها الله وابدك له قرآن كيلو آخرين فضائشي الشيخ كهالله كوا سوى قوني وي لكن سجود بشهر هي فضائش هذا أي نوع تابعني توفيق الله ينوافجيه إلهنا تبارك وتعالى بشاس خيرات كذي وناك كذاس كوا كفاية الله ينقدره هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم